wanaagsan daawade ku soo dhawow barnaamijka hanka sare ee Dheema Show. Magacaygu waa Dhuuxa Xaashi. Mustaqbalkaagu waxa uu ku xiran yahay waxaad maanta tahay, waxa aad rajaynaysid iyo waxa aad filanayso inaad qabatid balaankana kugu jira. Ma wanaagsan inaan ka murugoono wax aan wali gaarin, waxaan ogeyn sida ay u dhacayaan. Allah subxaanahu wa ta'ala oo kaliya ayaa og waxa aan ku noolaanayno iyo waxa aan ku dambeynayno. laakiin anaka waxa qurux badan inuu mustaqbalkaana ahaado mid wanaagsan oo wada fiican loo maro. Ha ka fikirin wax aadan qaban karin, tan ka baabeen waxaadan qaban karin waxaad qaban karto. waxa aad jeceshahay oo aadan awoodin ha ahaadan kuwa kaydka kugu jira oo aad meel ku qorato. laakiin si aad u gaarto mustaqbalkaaga waa inaad jaranjarada ugu horeysa afusha ee guusha loo maro. balaanka aad mustaqbalkaaga u dejinayso waa inuu ahaadaa mid aad ka soo fikirtay wadadeedan aad u soo martay. yeesan ku murjinin dadka hareerahaada ah. waxaa jira dad tiro badan oo jecel inaad mustaqbal yeelan, laakiin ka waran mustaqbal aad maanta sameyn karto haddaad ka qoomamaysid 60 sano kadib oo aad tiraahdid haddii waagaas waxaan sameyn lahaa guushaas iyo guushaas ayaan gaari lahaa. haddaba hadda samey, waad sameyn kartaa. haddii aad maanta murugaysan tahay, beritoole ogow waxaa tahay ruux faraxsan. haddii aad maanta gaajaysan tahana waxaa tahay ruux beritoole dherigsan. haddii aad maanta faqiir tahay, beritoole waxaa tahay ruux taajira. haddii maanta dhibaatooyin badan ay kugu hareeraysan yihiin, beritoole waxaa tahay qof ka gudba dhibaatadaasi. dhibaatada laftirkeeda iyo murugada laftirkeeda waxaad ka dhex raadisaa fursad aad ku dhisi kartid mustaqbalkaaga. kaliya qofkay u muuqato meesha uu u socdo ayaa ka gudba mustaqbalkiisaasna ku raaxaysa xilliga dambe. bal qiyaas dadka guulaha gaaray sidee ayay ku gaareen, xageesa ka mareen. haddii aad akhrido buugaagtooda baaritaan ku samaysid, kuma jiro mid si raaxo leh ku gaaray guusha, kumana jiro si raaxo leh mid ku gurtay mustaqbalka uu maanta joogo. mustaqbalka wanaagsan waxaa loo maraa wada ay adag tahay qofka maraaho inuu ka gudbo. ruux nafsadiisa ubaxa loo beero ee noqo ruux beera farxadda noloshiisa iyo mustaqbalkiisa. ha noqonin ruux loo sameeyo mustaqbal ee noqo ruux qaada mas'uuliyadda mustaqbalkiisa iyo wadada uu ku tegi lahaa. intaa ayaan ku hakinayaa barnaamijkeena hanka sare oo halkan page-ka Dheema Show iyo YouTube-ka ka ahaan doono barnaamij taxana ah oo maalin kasta haddii aan waqti u helna aan soo geli doono insha Allah. nagu dhiirigeli inaad page-ka noo follow gareyso, muuqaalka laga noo saarto, noona share gareyso asxaabtaadana la wadaagto. mustaqbal wanaagsan ayaan ku rajeynayaa. nabadgelyo.